لا شك أن محمدًا خير الورى ريق الكرام ونخبة الأعيان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan halkan ka sii wadaynaa mowduucii ahaa in nabi ciise aanu samada ku nooleen ee geeriyooday sidii ambiyadii alle dhammaan u geeriyooday. barnaamijkii hore waxaynu ka hadlaynay in marka kitaabka qur-aanka la raaco in nabi ciise uu geeriyooday oo aanu samada ku noolayn. marka inagoo sii wadayna daliilkii qur-aanka waxaa aayad kale ilaahay uu yidhi acuudu billaahi min ashaytaani rajiim waid qaala allaahu yaa ciisa bnu maryama a anta qulta linnaasi itakhiduunii wa umiya ilaahayni min duuni illaah qaala subxaanaka maa yakuunu lii an aquula maa laysa lii bixaq in kuntu qultuhu faqad calimtah taclamu maa fii nafsii walaa aclamu maa fii nafsik anta callaamu lquyuub maa qultu lahum ilaa maa amartanii bih an icbudu allaha rabbii wa rabbakum wa kuntu calayhim shahiidan maa dumtu fiihim falamaa tawafaytanii kunta anta raqiiba calayhim wa anta calaa kulli shayin shahiid. waxaa eebbe warsanayaa nabi ciise calayhi salaam qiyaamaha maadaa ku yidhi dadka, waa sida aayaddu aynoo sheegayso, maadaa ku yidhi dadka aniga iyo hooyaday naga yeesha laba ilaah. tani marka waa jawaabtii nabi ciise. nabi ciise wuxuu ilaahay ugu jawaabayaa eebow uma geyn taa aad ifartay mid aan ahayn. maa qultu lahum ilaa maa amartanii bih. waanan ka warqabay intii aan la jiray ee la joogay maa dumtu fiihim. markiise aada isoo oofsatay nabi ciise wuxuu leeyay falamaa tawafaytanii. yani ilaahay wuxuu u sheegay nabi ciise in laga dhigtay laba ilaah isaga iyo hooyadii. jawaabta u fiirso marka nabi ciise uu bixinayo wuxuu leeyahay intii aan la joogay maa dumtu fiihim ayaan ka warqabay. falamaa tawafaytanii markiise aada isoo oofsatay wixii ka dambeeyey eebo adaa warqaba kunta anta raqiiba calayhim. wuxuu leeyahy nabi ciise markaan soo geeriyooday wixii ka dambeeyey ilaah adaa warqaba, yani war uma qaba buu leeyahy. waxaan ka fahmaynaa aayaddan in nabi ciise aanu soo noqon doonin oo aanu u warhayn doonin in isaga iyo hooyadii laga yeeshay laba ilaah. haddii uu ku soo noqon doono adduunkan miyaanu sida inaba aynu ognahay ee u aragno inay ka yeesheen isaga iyo hooyadii laba ilaah isna marka uu soo noqon miyaanu arki doonin
oo u ogaan doonin miyuu odhan karaa waxaan ka warqabay oo keliya intii aan la joogay soo inuu yidhaahda may ahayn markii labaad ee aan soo noqday ayaan khaladkooda u sheegay oo saxay waxay aayaddu si cad inoogu sheegaysaa in nebi ciise aanu u warhayn doonin in laga dhigtay isaga iyo hooyadii laba ilaah waxa kaloo aayaddu muxuu ahaa aynu ka fahmaynaa in masiixiyiintu ama kiristaanku ka dhigtay nebi ciise iyo hooyadii laba ilaah markuu geeriyooday ka bacdi nebi ciisena aanu u warhayn doonin una warhaynin iminka ilaa qiyaamaha uu ilaahay su-aashan weydiiyo intii uu noolaana ay kiristaanku caabudi jireen ilaah qura waayo sida aayadda ku cad maa qultu lahum buu yidhi ilaa maa amartanii bih an icbudu allaha rabbii wa rabbakum yacni caabuda ilaahayga iyo ilaahiina yacni ilaah keliya caabuda marka shirkiga maanta ay ku jiraan waxa uu dhashay markii nebi ciise geeriyooday ka bacdi falamaa tawafaytanii buu yidhi nebi ciise kunta anta raqiib calayh ilaahow markay soo oofsatay wixii ka dambeeyey adiga ayaa u warqaba culimadu ereyga tawafaytanii ayay waxay ku macneeyaan markii aad sida markii horeba muxuu aayaddii horeba muxuu ahaa idiin sheegay markii aad isoo kaxaysatay isoo qaadatay marka hore miyaan ilaahay meel walba joogin haddii aad macnaha usii fiirsato wuxuu kula gelayaa masiixiyad sida kiristaanku ay wax u fahmaan waayo waxay aaminsan yihiin in nebi ciise alle la joogo meel aan bashar kala joogin meel aan bani aadan kala joogin waayo waxay leeyihiin waa ina ilaah marka aad tidhaahdo alle ayaa ka haystay isagoo jir ahaan qof ahaan dharkiisii wata marka ilaahay baa ka haystay oo alle ayuu la joogaa meel aan bashar kala joogin maxaa marka adiga fahamkaaga iyo fahamkooda u dhexeeya iyagu sababta ay leeyihiin ilaahay buu la joogaa waxay leeyihiin bashar ma ahayn ee wuxuu ahaa ina ilaah adoo muslima markaad sidoo kale aaminto aad tahay nabi ciise ilaahay baa ka haystay oo ilaahay buu la joogaa waxa weeye marka waxba uma dhexeeyaan fahamkaaga iyo fahamka masiixiyiinta waxaase wax walba ka mudan inaan eegno sida rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu ereygan tawafaytanii uu u fasiray waxaa xadiis bukhaari ah laga wariyey rasuulkeena sala allahu calayhi wala aalihi wasalam in qiyaamaha uu arki doono dad lagu sii wado naarta markaasuu ku dhawaaqayaa oo odhanayaa asxaabii asxaabii waa asxaabtaydii waa asxaabtaydii markaasaa la odhanayaa markaad ka soo faaruqday ee soo dhimatay bay ridoobeen oo leexdeen innahum lam yazaaluu murtadiina calaa acqaabihim mundu faariqtahum markaad ka soo faaruqday ee aada soo geeriyootay ayay leexdeen baa loo sheegayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam sida marka xadiiska ku cad xadiisku waa bukhaari weeye waxaa laga wariyey rasuulka calayhi salaatu wasalaam in uu odhan doono fa aquulu buu rasuulka calayhi salaatu wasalaam yidhi waxaan odhan buu yidhi kamaa qaala cabdu saalix marka waa nebi ciise weeye sidii nebi ciise yidhi waxaan odhan buu yidhi waa asxaabtiisii oo lagu sii wada naarta markuu rasuulka calayhi salaatu wasalaam yidhi asxaabi ayaa la yidhi intii aad kasoo maqnayd markaad soo dhimatay ayay leexdeen oo ridoobeen markaasuu rasuulka calayhi salaatu wasalaam leeyahay
waxaan oran fa aquulu buu waxaan oran kama qaala cabdu saalix sidii nabi ciise yiri ayaa waxaan oran doonaa wa kuntu calayhim shahiidan maa dumtu fiihim falamaa tawafaytanii kunta anta raqiiba calayhim wa anta calaa kulli shayin shahiid ilaa aayadda muxuu dhamaadkeeda ereyga alle ah alcasiizu alxakiim waxaan ka warqabay oo markhaati ka ahaa weeye intii aan la joogay markiise aad isoo oofsatay wixii ka dambeeyey allow adaa ka warqaba allow adaa dee ilaaliya u ahaa xadiiskan ereyga tawafaytani macnihiisu sida markan la isku wada waafaqsan yahay ee culimmada ay isku wada waafaqsan tahay macnihiisu waxa weeye waa nafqaadis dhimasho ah rasuulku wuxuu leeyahay markan soo geeriyooday buu leeyahay falamaa tawafaytani haddii marka xadiiskan inoo sheegayo in rasuulku uu leeyahay markii aan soo geeriyooday aan soo dhintay wixii ka dambeeyey ilaahay adaa u warqaba marka nabi ciise leeyahay falamaa tawafaytanii waa isla aayaddii miyaan iyana macnaheedu aanu ahayn markii aan soo geeriyooday ee aan soo dhintay rasuulku wuxuu leeyahay falamaa tawafaytanii ilaahu markii aan soo geeriyooday wixii ka dambeeyey adaa warhaya nabi ciisena sidoo kale wuxuu leeyahay falamaa tawafaytanii ilaahay markaan soo geeriyooday wixii ka dambeeyey adaa warhaya sidan awgeed ayaa marka macnaha ereyga tawafaytanii sida rasuulku calayhi salaatu wasalaam inoogu sharxay uu u yahay dhimasho geerisiin ah ma aha walwaalis ma aha sida culamada qaar ay rabaan inay ku dirqiyaan ama ay ku fasiraan aayaddan waxay markaa caddaynaysaa in nabi ciise calayhi salaatu wasalaam uu geeriyooday aayad kale وبكفرهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتل المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه بالهجر وما قتلوه وما سلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما سورة محوية النساء آيات كنتم يتطبع إلى كنتم إلى بقول كنتم يتطبع إلى بقول كنتم يسقال أمرك إيجنو آيات حتى بحم قرن سافرين تم معناها مقرن سامحوها إلهي ونفع سيني آيات وحي عدين إنسان inuu ka badbaaday nabi ciise saliibkii la isku dayay in lagu dilo malcuunna aanu ahayn waayo sababta ay ugu xuleen tiirka yani saliibka sababta ay ugu xuleen baa waxay ahayd inay caddeeyaan inuu malcuun yahay marka aayaddan waxay caddaynaysaa inuu ka badbaaday malcuunna aanu ahayn ee yahay marfuuc alla dhaweystay yahuud waxay rabtay inay عطيا نبي عيسى إنه ملعون يهي إلهينا وحوليه بل رفعه الله إليه إلهي با مقام هاند ويستي مركا ملعون ما هو مرفوع به وحا قرآن كنو شيئا مرك أهريسة حتى آيات محوها دمعت كيدا وحا قرآن كنو شيئا يعني السنة بأدري النبي عيسى إلهي وحوليه وما قتلوه يقينا عن السنة بأميدلين عن السليب كانوا كمود من سكر أميدلين وايو قيب كميدا يهودا أيا آمن سن إن مركة هوري لبدلي كبعدنا لغو حري مطوها السليب كلغو حري قارنا وحي آمن سن يهين إن يكدرين السليب كلفتيسي وحا مركة إيه بليه وما قتلوه وما سلبوه يهود السنة أميدلين gaar ahaan kumay guulaysan inay ku dilaan saliibkii ay isku dayeen inay ku dilaan
سأو عطيان إنه يهي ملعون وما قتلوه وما سلبوه يعني وحوي كمي كوليسن marka hore sina uma dilin ta kale kumay guuleysay inay ku dilaan saliibkii eebbe subxaanahu wa tacaala been abuurkan iyo gaar ahaan malcuun buu ahaa ayuu aayadan ku burinaya oo ilaahay leeyahay wamaa qataluuhu wamaa salabuuhu may dilin sina uma dilin kumanay guuleysan inay ku dilaan saliibka waase ula ekaaday mid ku dhintay wuxuu la ekaaday mid ku dhintay walaakin shubbiha lahum yani waxay ku xidheen tiirkii marka xanuunkii faraha badnaa buu suulay markaas wuxuu ula ekaaday in uu dhintay waa taa ilaahay uu leeyahay muxuu ahaa aayadda uu ku leeyahay walaakin shubbiha lahum waayo nabi ciise wuxuu ku xidhnaa qiyaastii ilaa 3 saacadood waqtiguna gelin dambe ayuu ahaa caadaduna waxay ahayd in qofku haddii aanu tiirka ku xidhnaa markay qoraxdu ay sii dhacayso ee weliba gaar ahaan ay sabti soo gelayso markii qoraxdu sii dhacaysay ayaa loo ogolaaday qaar ka mid ah asxaabtii rumaysay xawaariyiinta ahayd inay qaataan jirkiisii marka askartii roomanka ilaalinaysay ayay aayaddan ka hadlaysaa ay leeyihiin aayaddu ay leedahay wuxuu ula ekaaday wuxuu ugu muuqday inuu dhintay walaakin shubbiha lahum culamada qaar ayaa yidhaahda qof kale ayaa lagu xiray oo qofka tiirka lagu xiray nabi ciise ma ahaynba qof kale ayaa lagu xiray marka qofka tiirka lagu dilay waa qofka kale weeyay nabi ciise inta samada la furay ayaa malaa'ig samada u qaaday warkani kama sugno rasuulka calayhi salaatu wasalaam xagee warkan ka keeneen hala weydiiyo culimada oo hala yiraahdo warkan noo sheegaysaan aad leedihiin qof kale ayaa muuqiisa lagu tuuray xagaa ka keenteen kama sugno kitaabka quraanka kama sugno rasuulka calayhi salaatu wasalaam kama sugno asxaabtii xagee uu naga soo galay warkan aan muxuu ahaa in qof kale ayaa muxuu ahaa loo ekeysiyey oo lagu xiray tiirkii lagu xiray qofkan se meesha lagu xiray miyaan dad dhalin miyaan la waayin miyaan la odhan war hebel baa maqan taariikhda marka dib u eegto taariikhda eegtan muxuu ahaa taariikhda dib u akhrido waxa weeye ka heli maysid sadar keliya oo ka hadlaya oo le qof baa la waayay marka culimada le qof kale ayaa lagu xiray hala weydiin sharxa marka uu horeysa meesha ka keenay sharxani kama sugnaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam markaad weydiiso waxay idin odhan doonaan waxa uu inaga soo galay xagga reer banu israa'iil marka khuraafaadkii reer banu israa'iil qaar ka mid ah ayaa fahamkii diinta soo galay culimaduna iyagoo aan u fiirsan ayay waxaan odhan karaa markay qorayaan iyaga waa ka ijtihaad weeye oo ma garanaysaa muxuu ahaa waxay isleeyihiin diinta wax tara laakiin waxa weeye waa khuraafaad inaga soo galeen baa reer banu israa'iil weydiiya ninkan muuqiisa lagu tuuray sharxan xagaa ka keenteen ku dhahaa weydiiya culimada weydiiya waxaan idinku odhan doonaa saan idiin sheegay wuxuu inaga soo galay reer banu israa'iil aayaddaa sii fasiraysa waayo aayaddan badi waa aayadda culimadu ay u daliishato in nabi ciise uu samada ku nool yahay ilaahay muxuu leeyahay aayaddan وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا كوا اسكو خلافسن ee nasaare iyo yahuud ah shaki baa kaga wada jira yani warkii ay sheegayaan oo manaan laha cilmi oo wax sugan ma hayaan waayo labada qolo ee isku khilaafay qolo waxay tiri wuxuu ku dhintay saliibkii oo yahuud sidaas awgeedna malcuun buu ahaa qolada kalena waxay yiraahdeen waa run oo uu ku dhintay si uu xambaarto dambigii bani aadanka kabacdi nafta baa ku soo noqotay kabacdi samada loo qaaday labadooda qolo
qolona ma sugi karaan halka jirkiisa ku dambeeyey iyaguna uma laha cilmi uma laha waa tan aayad ilaahay uu leeyahay maa lahum bihi min cilm yahuudu ma sheegi karaan halka jirkiisa ku dambeeyey hataa ku dish aad leedihiin waxaan ku dilay tiirkii saliibka oo malcuun buu ahaa jirkiisii meeyi qoladan kale ee nasaaraduna ee muxuu ahaa kiristaankuna ma sheegi karaan si uu samadu qabtay halkan weeye halka quraanku uu leeyahay kuwa isku khilaafsani hubantii ma hayaan umana laha cilmi mutihin mooyaane ugu dambeynta waxa eebay weynaayo aayadan ku yiri وما قتلوه يقينا يعني waxa sugan in aan nabi ciise sinaba aan loo dilin quraanku wuxuu burinayaa marka uu horeysa inuu malcuun ahaa way sababta ay ugu xuriyeen ba taas ahayd malcuun waxa weeye qof naxariista iyo dhawaanshaha ilaahay magaranaysa hoos uga dhacay weeye qof ilaahay ka fogaaday weeye malcuunku ilaahay wuxuu leeyahay malcuun ma ahayn waxay reebeen yahuudu inay حقيقيان إلهي وحليه ملعون ما أهين روحها مرفوع بل رفعه الله إليه يعني مثل هاي دويست أيها ولا لها كل عن طريقة توصل إسويدي حاجة إلهي وكر وقاعدين بالإسلام مركب علماء إليه النبي عيسى إلهي وقاضي أو إلهي بو قبطي يعني وحي ليه إلهي با قاضي وإلهي بو تغي مين إلهي ميل والبا جوغين آخر قرآنك إلهي ما لهين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله نور السماوات والأرض إلهي وحوي دم والبا واكا خيغا ميل والبا إلهي وا جوغا marka qof Ilaahay uu meel ka qaadayo macna waxa weeye waxa uu u dhacaysaa meesha laga qaaday oo kale macna waxa weeye marka halka Ilaahay ma joogo hadii Ilaahay meel walba joogo sidee Ilaahay qof meel uga qaadi karaa u geyn karaa meel kale Ilaahay joogo hadii saa u fiirsato sida aayaddu ay isugu xiran tahay yahuudi waxay rabtay inay cadayso inuu malcuun yahay waa sababta ay tiirka ugu xiran yihiin weeye إلهينا وحول إليه تاسو برنيا وليه ملعون معه ومرفوع ورفعه الله إليه مركا آيادا وحي سعد إنه وحي إنه شاكتي إنه عيسى وكبت بعدي دلدليستي صليبك وأنا كقوليسن يهود إن أي كدلان صليبكي وأنا الشرقول كأيربين محوها إني يداهدان ملعون بوها أيضا كلام إلهي وحيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون آيات أنفرسوا إيه بآياتا وحونا وشاقي النبي عيسى ونبي عيسى الله صدر ريب المصايب رسول أها دمان رسول شكو رئيس أقريودين وفرسوا حدي رسول شكو رئيسي dhammaan wada xijaabteen oo ay geeriyoodeen isaguna uu rasuul yahay sidee loo oran karaa ma xijaaban oo ma dhiban marka nabi ciise rasuul buu ahaa waa inuu isla markiisa geeriyoodaa aayad waxa kale Ilaahay leeyahay isaga iyo hooyadii waxay ahaayeen kuwa ku noolaa cuntada kaana yaakulaan tacaam u fiirso sida alle dhan walba inuu ka tusayo in nabi ciise basharaha u noolaa sida bani aadamku u nool yahay waxaan gaar ahaan aayadan alle inuu sheegay in nabi ciise calayhi salaam iyo hooyadii
cunto cuni jireen waa markay noolaayeen ayay sida dadka cunto ku noolaayeen haddase ma noola aayaddan waxay burinaysaa in nabi ciise samada ku nool yahay oo aanu cunto u baahnayn waayo ilaahay halkan wuxuu leeyahay kaana ya'kulaani tacaama waxay cuni jireen cunto ayay ku noolaayeen آية كله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم آية نوحي لمحوها صيغتها آيات يمكن ينصوا آخرين إلهي وحلي وما محمد إلا رسول محمد الرسول بوها قد خلت من قبله الرسل ay dhammaan wada geeriyoodeen rusushii muxuu ka horeysay marka aayaddan ay sida cad inoogu sheegayso in dhammaan rusushii ka horeysay nabi maxamed oo nabi ciise ku jiro ay wada geeriyoodeen sidee loo mutooyin karaa malaha aanan ciise u nool yahay ilaahay wuxuu leeyahay waa muxamed ilaa rasuul qad khallat min qablihi rusul maxamed rasuul buu ahaa rusushii ka horeysay dhammaan ay wada geeriyoodeen waxa aayaddan akhriyey abubakr radiallahu tacaala canhu markii rasuulku calayhi salaatu wasalaam u geeriyooday asxaabtu waxay rumaysan kari weyday in rasuulka calayhi salaatu wasalaam u geeriyooday abubakar baa marka oo banaanka ku maqnaa ayaa yimi markaasuu rasuulkii soo eegay asxaabtii buu yimi wuxuu abubakar yidhi radiallahu tacaala canhu man kaana minkum yacbudu maxamadan faina maxamadan qad maata waman kaana minkum yacbudu allaha faina allaha xayun laa yamuut kiina buu yidhi caabudi jiray maxamed waa dhintay kiina se alla caabudi jirayo ilaahay waa noole aan dhiman waxaa marka abubakar akhriyay aayaddan wamaa muxamadun ilaa rasuul qad khalat min qablihi rusul aayaddan abubakar wuxuu caddeynayay aayaddan wuxuu abubakar radiallahu tacaala canhu caddeynayay in rasuulku uu ahaa rasuul ay tahay inuu geeriyoodo yani wuxuu leeyahy rasuushii ka horeysa o dhan baa geeriyootay maxamedna sala allahu calayhi wacala aalihi wasalam rasuul buu ahaa marka isna waa inuu geeriyoodaa ta kale haddii aayaddan wamaa maxamedun ilaa rasuul qad khallat min qablihi rusul abubakar u daliishaday geerida nebiga calayhi salaatu wasalaam miyaanay caddayn in aayadda ah malmasiixu ibnu maryam ilaa rasuul qad khallat min qablihi rusul iyana ay daliil u tahay in nebi ciise geeriyooday waxaan filayaa labada aayadood qofka isku akhriyaa inay u caddaanayso in uu nebi ciise uu geeriyooday ee aanu noolayn intan keliya ma aha aayado kale oo ayaa jira badan oo ka hadlaya muxuu ahaa in nebi ciise uu geeriyooday haddii alla ka dhigo sababta waxa weye mawduucan waa mawduuc aada iyo aada u muhiim u ah in la fahmo inaan nebi ciise samada ku noolayn ee uu bashar ahaa basharna ay tahay inuu geeriyoodo marka haddii alla ka dhigo barnaamijka dambena aayadaha muxuu ahaa ee ka hadlaya nebi ciise inuu geeriyooday ayaynu sii wadi doonaa wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu يا رب صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وبعد